marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa u fadhiya gidina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay kuma gaarka ah hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland ara dhagay sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abada cadadooda ثلثين ninka ay vootisa hadii markan ugu horeeyay la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig laba ah markan lagu aqlabiya saaxiqa Abdullah Usman janto test boqol iyo 7 مقرأ هيا رئيس الجمهورية ورئيس العراقي الله باركي على عبد الله عثمان weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa hadee inaad xilka aad saarteen aad qabatiin manta waa mahad ilaahi maanta dadkii midowye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta markii dilkeena maanta lama madhin karaayo maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta dhaxaan muugiyo haraad mudane maantay curatooy mataana haysee almaadu hashee almaadu